bulshooy bishaaro bishaaro warheede waa maxay bishaaradu soo ma ogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex cilaajinayay oo Dr. Axmed Cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo ilaan xaaji xasadkayga baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga boqolka qof igu dhex darayeen haddaba ina keen aan booqanay Dr. Axmed Cilaaj laga raysay wixii hore Al-Hilaal Herbal Online waa xarun daawo dhireed oo leh goob jiif ah bukaanku ku nasto ilaa uu ka bogsanayo laguna daaweyn sidoo kale Al-Hilaal Herbal Online waxay leedahay gargaarka degdega ah oo qofka xanuunsanaya gurigiisa lagu soo daaweyni Al-Hilaal Herbal Online waxa kale oo laga daweyn macaanka dhiigkarka rheumatismka maqaarka kaliya xanuunka massage toobin waafaqsan sunnada allergiga gastriga iyo daawo ka caawinaysa dhalmalaanta jinka iyo umusabiyaanka xarunta Al-Hilaal Herbal Online waxay ka daaweynaysaa riyooyinka baqdinta leh iyo qarowga ayada uu diyaar kugu yahay specialist Dr. Axmed Cilaaj daawadiisana lagu caafimaaday haddaba waxba yaan hadal kugu daalinine soo booqo xarunta Al-Hilaal Herbal Online oo ku taala xaafadda Islii Second Avenue gaar ahaan qaybta 7 Street wixii faafaynta si dheer kala xiriir telefoon lambarka Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi نستعين على أمور الدنيا والدين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمان ولا لها سود وهذا إن شاء الله تعالى صاد عوانك كو أركتين با وحان مفسرين ريوينكي برنامج ريوينك نوصع عندونه إن شاء الله تعالى بشن هدو إلهي سبحانه وتعالى كرال النقضة برنامج بمر أيان وكهل دونا هذا وحان بلوني أو ديب عنو بلوني برنامج كي ريوينك qaababka ee qofka uu ku riyoodo wixii culimadii mufasiriintii riyooyinka ay ka yiraahdeen ayaanu insha Allah ta'ala idin la wadaagi doonaa haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka raali noqdo maanta barnaamijka aanu fasirayno riyada aan fasirayno waxa weeyaan qofka hadii uu ku riyoodo dahabkaasi noocyadiisa hadii uu qofka ku riyoodo riyadaasi maxay noqon kartaa ayaanu maanteeto rabnaa inaan yara dul istaagno insha Allah ta'ala riyadu markaa waxaana ku fasirayno waxa weeyaan wadada ugu saxsan ee mufasiriintii waaweynaa riyooyinka fasiri jireen aan ka soo guurinay way qofka marka hadii uu ku riyoodo qofka ragga ah ee haddana guursaday oo reer leh hadii uu ku riyoodo dahab haduu ku riyoodo badan qofkaas waxa weeyaan wuxuu helayaa khayr aad u fara badan barako barwaaqo fara badan ayuu dhaxgalayaa oo helaya oo u bishaareynayna qofka hadii markaas sidaas uu riyoonayo dahabkii iyo waxyaalaha la midka garanaysa gaar ahaan hadii uu ku riyoodo asagoo dhulka ka soo qufaya dahab wuxuu helayaa dhaqaalo aad u badan ayuu helayaa qofkaas ragga طيب sidoo kale ninka ragga ah hadii uu ku riyoodo asagoo dahab cunaya ama shay kale oo dahab ka samaysan cunaya hadii uu ku riyoodo qofkaasi ragga ah xaaladiisu waxay noqonaysaa xaalad aad u adag waxa aad ugu dhowdahay bay yiraahdeen mufasiriintu qofkaasi inuu ku dhici doono dambiye waaweyn dunuub waaweyn inuu galayo ayay aad ugu dhowdahay bay yiraahdeen marka hadduu qofku waxaas ku riyoodo waa inuu isxakameeyo lianna waxa weeyaan waxa la siiyay digniin adag ayaa la siiyay taasi waxa weeyaan waa raggi iyo aragtidii ku saabsanayd dahab aanu imaana marka haweeneyda iyaduna reer kale ee degan oo reer leh oo guursatay haddii ay ku riyooto dahab iyaduna sidoo kale sida ninka oo kale wanaag fara badan iyo khayr iyo barako ayaa loo rajeynayaa inay helayso taas marka waxay noqon doontaa gurigeedu wuxuu noqon doonaa guri barwaaqo guri degan guri ma sha Allah ayuu noqon doonaa hadii ay ku riyooto dahabka sidoo kale haweeneyda hadii ay ku riyooto dahab gurigeedu lagu sharaxay oo lagu qurxiyay lagu dhaldhalaaliyay hadii ay ku riyooto fasiriintu waxay yiraahdaan gurigaas waa guri qatar ku sugan dhibaato iyo walwal iyo murugo ayaa ku soo wajahan qoyskaas sidaas ay ku fasiraan mufasiriinta waaweyn kale haweeneydu hadii uur leedahay way ku riyooto dahab mufasiriintu waxay isku raaceen in haweeneydaasi ay dhalayso wiil hadii laakiin nooca fidada ay ku riyooto
waxay dhalaysaa bay yidhaahdeen gabar. sidoo kale gabadha aan weli guursanin haddii ay ku riyooto dahab fara badan oo haysato, haddii ay ku riyooto, mufasiriintu waxay leeyihiin gabadhaasi mustaqbalkeeda waxay heli doontaa nin fiican oo wanaagsan oo mustaqbal wanaagsan la qaato ayay heli doontaa ayay yidhaahdeen. yani insha allahu tacaala waxaan halkaas kasii wadi doonaa riyooyinka iyo fasiraadooda. qofkii riyo ku riyooday ee u baahan in lala wadaago fasiraadeedana lambarka nagu wakaa wuu nala soo xiriiri karaa dhanka whatsappka, waana uga soo jawaabeynaa insha allahu tacaala. aad baad umahadsantiin, wabillahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuh.